kulanti wanaagsan oo waxaan meel kastoo dunida ka joogtaan kuna soo dhowaada waraysigan kooban oo aanu la yeelan doono haddii allaha awoodale uu yidhaahdo fanaanka weyn ee suldaan seeraar ee bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay dunida joogto ay si wacan u taqaano iyo waxyaalihii fanka inuu ku biiro ku kalifay iyo meesha uu fankiisu maanta maraya iyo dabcan intii uu ku guda jiray waxyaaluhu la kulmay suldaan seeraar wuxuu iminka ku sugan yahay stuudiyaha tv-ga universal ee magaalada hargeysa si diiran ayaan kuu soo dhoweynayaa marka hore suldaan waa mahadsantahay walaalkay aad baan u dhowahay mar koobaad iyo mar labaadba waana kaga mahadcelinaya idinka mahadcelinaya dhammaan bahda tv-good adigoo ugu horeyso sida quruxda badan ee sharafta leed igu maamuusteen barnaamijkan quruxda badan annaguna sidoo kale inaad waktigaaga noo hurtay eed xilligan oo xilli dambe ay u tahay hargeysa aad stuudiyaha joogtid waktina aad gelisay waanu kaaga mahadcelinaynaa sidaa iyo si lamida iyo weliba ka badan inta aanan u gudagelinin waraysiga qaybihiisa kale bal suldaanow dadku wax badan bay kaa og yihiin oo dunidan technolojyada hormartay waa la iswada og yahay balse aan wax kaa weydiiyo bal yaraantaadii xaggeed ku dhalatay kuna soo barbaartay marka hore waa mahadsantahay walaalkay waa su-aal qurux badan waxaan ku dhashay gobolka shabeelle degmada dhanaan waxaan kusoo barbaaray magaalada goday ee gobolka shabeelle caasimadiisa tahay halkaasaan kasoo qaatay waxbarashadeydii dugsi hoose iyo dugsi dhexe halkaan dugsi sare aan ku qaatay jigjiga marka hadda xaggee ku deegaan rasmiya adigu iminka hargeysa aad ku sugan tahay hadda hargeysa videoyin aan sameeyaan oo imid laakiin meesha iminka basically aan u deganahay waa jigjiga waa gartay jigjiga iminka degan tahay markaanu waraysigan dadka la wadaagnay inaanu kula yeelanayno qoraallo fara badan ayaana soo gaarsiiyey dadku aad bay u xiiseynayaan u sugayaan waxaana jeclaahay insha allahu tacaala inaanu qeybaha kale si anbaqaadno waxyaalo badan bay dhalinyaradu ku hamidaa markay ay da-aadaas oo kale ay marayaan qaar baa waxay rabaan inay waxbarashadooda sii wataan qaar waxay rabaan inay shaqaystaan qaarba waxbay jecel yihiin adiga fanaannimada maxaa kugu dhaliyay markii hore inaad ka qayb qaadatid fanaannimada waxaa igu dhaliyey yaraantaydii ayaan fankaadu jeclaa waxaan ahaa dhalinyarta iskoolka markay tartamadu jiraan ama galaas kale uu la tartamayo dhanka heesaha u qaabilsanaa iskoolkan kasoo heesi jiray waan iska jeclaayoo hubbigaygu ahaa fanku sidii baan ku doorbiday jacaylaan jeclahay iyo rabitaan aan doonaya inaan fanka ku biiro ayaan ugu soo biiray waa gartay haddaba goormaad go-aankii ugu dambeeyey qaadatay oo aad istiri alleelehe iminka bulshada hor istaag marna iskuulladii baad ka heesaysay mar keligaabaa heesayey goormaad go-aanka ugu dambeyd qaadatay inaad bulshada lasoo hor istaagtid fankaaga wallaahi go-aanka ugu dambeystaa waxaan qaatay xilligii aan usoo wareegay jigjiga oo nin muddo aad joogay ayaan qaatay inaan fanka ku biiro anigoo ku biiray markaa kooxda ilays bandi oo ka tirsan deegaanka si wacanna way ii soo dhaweeyeen si qurux badanna way ii garab istaageen waa gartay maxaad ka xasuusataa heestaadii kuugu horeysay miraheedii ciddii abuurtay miraha lahayd laxanka saartay dabcan codkaagu ah maxaad ka xasuusataa heeskii ugu horreeyey waxaa ii sameeyaa waan hargelle oon halkan aad uga salaamayo ereyadeeda waxaa ka mid ahaa nal baad u tahay iftiimo nolosha nuur baad sidaa aan damayne ereyadaasaan kasii xasuustaa waa gartay bulshadu dabcan markii dabcan hees loo soo bandhigo siyaabo kala duwan bay uga falceliyeen sidee bay bulshadu uga falcelisay baad isleedahay heestaadii koowaad ilaan saaxaddii baad timid dibaddaad usoo baxday maxay islahaayeen baad isleedahay kala kulantay fanaaniinta ama dadka kale ee bulshaweynta soomaaliyeed wallaahi cabdixaafido heeskii ugu horreeyey dad badanna saa umayn sii dhegaysanin maadaamaan iska cusbaa fanka markaana kooxdaan kusoo biiray intii u horreysay kooxda waxaan ku jiray dadka heesaha nabadgelyada horumarka shacabka gubaabada
beeraha in la qoto heesaha nabadeynta oo kale yaan kooxda mar walba la daadihin jiray marka intii dambe buu fankaygu soo shacbaxay markii heestii hore ay la jaan qaadi weyday waxaad ka filanaysay sida hadalkaaga ka muuqata aadna cusbaydoodan eed ku lahayn ma istiri warniihow amaad gebigiisaba iska daysaa intaa kaaga ekaata may annagoo heesaha wadna annaga asxaab khaasa yaa haddana heesaha deegaanka iyo nabadgelyada ka sheekee ka hadla inta badan yaan ku jirnay markii dambena heesihii yaan isla qalqaad jirnay si raab oo kale ah aniga iyo Faysal Muniir iyo walaalkay Xariir kadib saasay darajo ugu soo socotay waa gartay dadku markay fanka ama saxaafadda ama waxyaalo kale ay ku soo biiraan waxay leeyihiin dad gacan qabta oo lafdhabar u noqda oo marjic u noqda dadka haddaysan lahayn aysan maaragtay adagta inay cagahooda ku istaagaan ilan qofkii wuxuu u baahan yahay toosin habayn khibrad waxyaalo badan baa qofkii ka maqan yaa ku gacan qabtay oo ku garab istaagay baad leedahay maanta fanka dad badan baa garab qabtay oo ugu horeyso walaashay Nasra ayaa garab qabatay oo fanka hubigayga maadaama aan jeclaa igu dhiirigelisay markii aan waan doonayay intay markii hore igu tiri iska daa maadaama uu rabitaankayga noqday way igu taageertay way garab istaagtay waxaa kaloo garab istaagay kooxdayda oo dhan oo isku duuban oo si qurux badan ii soo dhaweeyay inta badan fanka waxaa la yiraahdaa waa mixnad laakiin wuxuu Ilaahay la kulmiyay koox wanaagsan oo qofka la garab qabanayo la gacan siinayo wax walba u baahan yahayna laga saacidayo oo ugu horeeyo gudoomiyaha kooxda Aadan Axmed Xaddi Aadan Joker gartay insha Allah dhawaan waxaa jirtay inaad socdaal meelo kala duwan ku tagtay qaaradan Yurub ay ka mid tahay anagu aanu joogno bal aan dul mara marka hore meelihii aad tagtay Afrika haddaanu ku bilowno iyo dalkii hooyo magaalada Addis Ababa ayaa tagtay dabcan jigjiga dhulkeennii hooyo ayaad joogtay oo ay laftigeedu aad maaragtay ka heestay in badan magaalada Nairobi magaalada Muqdisho caasimadda qaranka Soomaaliyeed dalka Turkiga ayaa tagtay Kuala Lumpur ayaa tagtay Malaysia Dubai sidoo kale laakiin waxaa cajaa'iba 22 maalmood oo aad joogtay Yurub intaan coronavirus ku dhicinin inaad isku martay wadamo aad u fara badan bal aan dadka aan u dulmaro intaad tagtay meelaha tagtay aad maaragtay fankaaga kusoo bandhigtay waxaa ka mid ah dalka Faransiiska waxaa ka mid ah Netherland ama Holland dadku say u yaqaanaan Denmark Norway Jarmalka iyo weliba Stockholm ama Sweden oo ahayd maaragtay meeshii aad ka bilowdayba dadku markay Yurub yimaadaan waxyaalo badan bay kala kulmaan maxaad kala kulantoo kaa yaabiyey Yurub markaad timid wallahi Yurub muddadan haystay aad bay u yarayd 25 cisho oo habiisuhu 11 showna waan ku qabanay annagoon u yeelin sabti iyo axad weekend caamal dadka badan inta badan fanaaniintu waxay sameeyaan markay show qabanayaan weekend inay ku aadsiiyaan habeen axad soo galayso kale ama habeen sabti soo galayso oo kale annagu maadaama waqtigu nagu yaraa oo maana yeelin sabti iyo axad isniin iyo salaasi iyo arbaca waan sameeynay aniga iyo teamkayga ugu horeeyo walaalkay DJ Subeer oo halkan si kale laaba uga salaamayo haddana dadku way noo imanayeen waxaan la kulmay dad aad u qurux badan oo Soomaalinimadu ku weyn tahay oo soo dhaweynta yaqaana oo ehelnimo ku dheehan tahay oo si qurux badan oo sharaf leh oo maamuus leh noo soo dhaweeyay aniga iyo teamkaygiiba si wanaagsan noo soo dhaweeyay xaflad walbana na garab taagnaa si aad u qiimo badan oo karaamo ku dheehan tahayna mar walba noo gacan siinayay waxaan haynaa dabcan muuqaallo laga soo duubay xafladahaas qaarkood aanu jecelahay inaanu la wadaagno bulshada Soomaaliyeed dhawaan gartay waxaad dadka Soomaaliyeed kala kulantay oo dhaqan bay Soomaalidu leedahay inay qofkooda soo dhaweeyaan oo dadka marti geliyaan waana wax ummaddan ay ku karaamaysan tahay meel kastoo joogtaba bay'adda maxaad kala kulantay dhinaca Yurub dhinaca Yurub waxyaabo badan baan ka soo qoray maadaama markii ugu horeysay aan tagay way iska fara badan yihiin waxyaabahan kala kulmay qaar DJ Subeer si khaasan ay ugu hayeen way jirtaa
waxay ahayd markii ugu horreysay in aragnay aan arkay nin gidaar jiifo tuugsanaya Yurub ay on dhar sidii nin qabowga ka dhacaya isagoo waxba haysan gidaar jiifa waxyaabo badan baa ka mid ah marka fikirkaad ka qabtay Yurub ay ahayd ama laga yaabo dadka qaarkood inay ka qabaan daawanaya barnaamijkan ummad wada qaniyo oo aan dhibaato jirinin wax ka duwan baad aragtay waxa aragtay dadkii ajnabiga ahaa ee wadanka u dhashay qaarkood oo jiifa meelahaas goobahaas sheegay soo dawarsanaya waagaan yareen waxaan ka aaminsanayn Yurub oo kaliya ma aha qurbahoo dhanba in cid baahanaysa aysan jirin cid walba ay iska hantiyeysan tahay laakiin waxaan aaminsanahay qofka wadankiisa nabad ku jooga wadankiisii hooyo jooga meel hebelow laga leeyahay qof jooga wax qurbo lagu doorsaday inaysan ahayn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo oo kale oo maskaxdayda ku jirta dad badan laga yaabo inay isweydiinayaan intaad fanka ku jirtay qofkii ugu khiyaarsanaa ama ugu daacadsanaa ee aad la kulantay ee aad caawa isleedahay qofkaasu dadka kale waa kaaga duwanaa waa kumaad isleedahay waa mahadsantahay walaalkay fanka asxaab badan baan kusoo yeeshay markaan soo bilaabay ilaa maanta aan joogo asxaab badan baan ku leeyahay dhanka fanaaniinta markii aan dhaho qofkii ugu akhyaarsanaa ugu wanaagsanaa aan fanka walaalo ku noqonay wuxuu ahaa walaalkii xariir axmed cabdulaahi oo halkan aad uga salaamayo oo ah qof aan jecelahay akhlaaqdiisa wanaagiisa horumarkiisa iyo codkiisaba oo dadku saaxiib bay dhahaan laakiin saaxiib ma nihin walaalaan nahay ninkaas waa uga akhyaarsan oon fanka ku walaalownay insha allah dadku markay caan noqdaan waxay mararka qaarkood iloobaan bulshadii ay ka yimaadeen iyo baahidii oo dabaqad kale oo dad kale ayay markaas saaxiibo la yeeshaan intaad fanka ku jirtay dadka dhibaataysan ee taagta yar ee masaakiinta codkaaga iyo maxaa la yidhaahdaa karaamadaada ma ku caawisay si ay markaa wax weelaan mithaal ahaan dadka dalka gudahiisa ku dhibaataysan meeshay doonaanba ha joogaan arrimahaas waxaa ka qabatay habeeraatee ma jiraan ها way jiraan iminkana waan ku guda jiraa barnaamij aniga iyo group asxaabtayda ah aan ku tagnay baa jiray dolocado qaxootiga oo markaa fanka annagaan uga faa'iideynaynay oo dhalinyarta intaan soo abaabulay aan barnaamijyo u sameynaynay iyaga aan fanaaniin ka dhexulaynay aan goorsoorayaal aan u ahayn way jirtaa taas fikir kale oo iminka igu soo jira oo qayb ii diyaarsanna wuu jiraa especially weliba dadka gidaar jiifta dhalinyarta gidaarka seexata derbi jiifta ah daryeel bay u baahan yihiin in aan hadduu ilaahay raalli ka noqdo aan barnaamij u samayno oo weliba hees aan ka samayno hees weliba iyagu ay qayb ka qaadayaan aniga iyagaan wada daadihinayno kana hadlaysa waxaa laga yaabaa inuu jiro ilmo yaro waalid aan lahayn oo gidaar hoos jiifa gidaar aan dhihina guri hoos jiifa gurigana ay dad ku nool yihiin weliba awlaad haysata markuu ilmihii oo soo baxay arko niyadda kasii dhimanaysa mar walba halkiisiiba kusii jiraya maandoori oo cabayaa oo waxaan isku ilowsiinayaa marka barnaamijkan ka sameynay baa jira aniga iyo tiimka waqal studio hadduu ilaah raalli ka noqdana mar dhow waan la wadaagi doonaa oo ummadda wax loogu qabanayo oo markii aan soo saarno hay-adaha caawiyo dadka iyo dowladahaba aan hoos dhigi doono insha allah hagaag hawl wanaagsan weeye in dadka soomaaliyeed ee taagta yar aan la iloobinin oo codkeenna aanu ku biirino meel kastoonu joogno wax daruuriya waana kaaga mahad celinayaa wanaaggaas iyo kuwo kaloo fara badan oo lagugu tuhmaya adiga asxaab kaloo fara badanba daawadayaal waxaa la socotaan t v-ga universal waxaa barnaamijka caawa marti noogu aanu waraysanaynaa kuna sugan stuudiyaheena magaalada hargeysa fanaanka weyn ee suldaan seeraar waxaa noo soo socota abaalmarin 2019 dalka nairobi lagu guddoonsiiyey abaalmarintaas siday u dhacday iyo ciddii siisay iyo sida maaragtay ay ku dhacday in la siiyaba ayaanu ogaan doonaa waxaanu kaloo eegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo oo daawadeel idinku noo soo qorteen inaan weydiino su-aalahaad noo soo qorteen waxaa ka mid ahayd heesta 275 maxay tahay maxay ka dhigan tahay maxaa loola jeedaa markii u horreysay oo aan arkay qoraalada dadka ay soo qorayaan heestaa ku saabsan waxaan isiri tolow ma suldaan seeraar iyo cabdixafiid iyo d j zubayr oo laisku daray da-doodii miyaa 275ku waanu af garan weynay laakiin adaa noo sharixi doona haddii ilaahay yidhaahdo
waxaa kaloo insha allahu tacala noo soo socda show ka dhacay magaalada dalka Sweden oo Soomaalidu ay soo buux dhaafisay waxaana muuqata da'yarta Soomaaliyeed ee qurbaha ku kortay ee markii hore daawan jirtay ama dhageysan jirtay heesaha dadka ajnabiga ay sameeyaan markaas anshaxa iyo dhaqanka Soomaaliyeed ka fogay diintaba ay daawan jireen sida Beyoncé iyo Jay-Z qolyahaas inay daawan jireen haatan Suldaan Seraar ayay daawanayaan af Soomaali weeye waxa loogu heesayo dhaqankoodii iyo diintoodiina waa lagu waardiyeynayaa af Soomaaligii ayay ku baranayaan ajnabiga ayayna ka soo tegayaan waxyaalaha barnaamijkan nooca ugu talagalnay inaanu dadka kula qaybsano ayay ka mid tahay bal Suldaan intaana dib kuugu noqonin waxaan jeclahay daawadayaasha inaan xasuusiyo daawadayaal qaybta dambe waxaan siinaa fursad idinku aad toos Suldaan Seraar oo la hadashaan oo aad su'aalo ku weydiisaan marka haddii Ilaahay yiraahdo telefoonada ayaanu idin furi doonaa goordhow balse marka hore Suldaanow aan wax kaa weydiiye abaalmarin ayaa lagu siiyey sanadkii 2019 dalka Nairobi dalka Kenya magaalada madaxdiisa Nairobi abaalmarintaas waxaa kugula tartamayay dhinaca fanka iyo suugaanta rag fara badan oo Soomaaliya qaybta ragga kaliya ay dabcan ahayd intaan la socdo rag badan oo khiyaar ayaa kugula tartamaya adiga ayaa ku guuleystay intaanan guusha u gudbinin ma dadkii maamulka ayaa kuu gartay in maaragta lagu siiyo oo wax lagu maamuusayo lagu ixtiraamayay bay ahayd mise cod shacab baad ku heshay waa mahadsantahay walaalkay way jirtaa abaalmarintu ma ahayn mid shakhsi la iska siinayo ama mid qof lala jeclaanayo abaalmarintu waxay ku timid cod shacab bay ku timid waxaa la codeynayay muddo 2 bilood iyo 10 cisho aan jeclahay haddaysan ka badnayn A iyo B iyo C bay kala ahayd markii B la yimaado haddana A baa tartan loo sii qabanayay saasay ku timid cod shacab bayna ahayd abaalmarintu waa hagaag waa gartay waa kuugu hambalyeynayna waxaan idiin soo daynaynaa xafladda ama munaasabadda siday u dhacday haddii Ilaahay yiraahdo daawasho wacan So let's see the nominees. Male artist. Male Artist of the Year Award. Dayah Dal Nurshe. Sultan Seraar. Lil Balil. Adarkeo. Nim'an Abdurrahman Hilal. This award will be presented by representatives of Finland government who are here. Please come forward. Beautiful. Beautiful. And the winner of the Male Artist of the Year Award is Sultan Seraar. Pull up the tune! 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 Whoa, wow. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you so much. Sultan. Now, please come forward. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Yeah. Sultan, so Sultan is here. And the public demands that he performs. Huh? So Sultan, my friend, you cannot leave the stage without entertaining us, so you must perform. Sultan, way kugu qasban tahay inaad hees inoo qaadid marka aad ka shaqaysid. Awarka dhiibo. Stage-ka adiga iska leh. وهجاج هساسو إنه قصة صعتها يكوكلوا بدن هدي لها يرادو سلطان أول كاس أيام لوسية رك فرا بدن بعد جمع كولة ترسم خيار كل وذلك من كود السلامينا
dareenkaagu muxuu ahaa baad isleedahay mase ma filanaysay shacabka soomaaliyeed inay codkooda kugu taageerayaan mahadsantahay walaalkay markii hore nairobi waxaan u tegey barnaamijkan lahaa oo aniga ii khaas ah private yaha baan u tegey markii dambe maanan ogeyn inaan helayay in kale aniga iyo dadkii kale ee markii u dambeysayba la yeerinayay magacyadooda ready baan meesha ku ahayn qof inuu qaadan la hubina ma jirin laakiin markii magacayga lagu dhawaaqay dareenkaygu aad buu isu bedelay shacabkaygana niyaddan ka wada jeclaaday insha allah waanu ku hambalyeynaynaa waxaan u gudbaynaa haddii aada dhowaan qaybihii taleefanada ayaan u gudbaynaa balse magacaaga koowaad iyo ka labaad waa laba magac oo waaweyn oo af soomaali ah oo qurux badan suldaan maahana magac kale ma leedahay ama naynaas suldaan wax naanaysa maaha dadku badanaa suldaan seeraar naanays bay moodaan magacayga saxda waa suldaan aabbahay waa seeraar awowgeyna waa guhaad marka waa isla doonasho ilaahay waa gartay maxaa ka jira markaad yarayd in suldaan carab lagu oran jiray naanaysteedu marka hore carab bay ahayd oo iminka gadaal baan ka yar madoobaaday marka ma madowga ma yurub baad kala tagtay markaad timid waagaa dalka joogta waa caddayday madoobaadeen umalaynba waa gartay arrimahaas DJ Zubair baan haysanaa asagaa ka mas-uula waxaas madowga iyo sheekada marka waanu arki doonaa haddii ilaa yidhaahdo waxaanu markaan u gudbaynaa Sweden wixii ka dhacay iyo dhowaan heesii 275 intaana u gudbinin Sweden waa la isku soo baxay saanu muuqaal ku hayna aanu soo gudbin doono dareenkaaga muxuu ahaa ummadda intaa leeg markay isku soo baxday oo doonaysa inay adig kula kulanto oo ku aragto oo ujeedadeedu ay tahay aysan wax kala ahayn wallahi isma lahayn fikirkan ka haystay iyo san markii aan tegey ay noqotay way kala duwanaatay ummad intaa leeg baa kuu soo bixi isma lahayn soo dhaweyn saa qurux badan baad helaysa ma lahayn laakiin waxaan u wada mahadcelinayaa dadkii quruxda badnaa ee sida sharafta leh ee igu soo wada baxay siiba shacab weynaha reer Stockholm oo yar iyo weyn bay soo baxay xaflad qurux badanna ila qurxiyay keligay waxba ma ahaadeen aniga walaalkay Zubair haddana meesha soo istaagno waxba ma ahaateen laakiin shacabka quruxda badan baa qurxiyay oo nuuriyay ونبا لوجا هنا يدك سوق بنقابيه أقرتي قف والبشعب كيس أيوه وحكوية هاي ومضوا البنا وحوي إسكوتير سنة مركز إسكوتير سناتهم بي وحنقطة ونوجم هذا علينا وكان سويدن يوحي كدعي داو شوال هاستن توركو كبلا أنا بحال أهاتو هذا شرفتي هيا هذا شرفتي هيا
hagaagtaas Sweden ayay ahayd iyo Suldaan Seraar Suldaan waxaan jeclahay insha Allah taala inaan u gudbo markaan khadadka telefoonada bulshada Soomaaliyeed ee soo buux dhaafisay oo doonaysa inay toos kula hadasho su'aal ku weydiiso diyaar ma u tahay inaan ooda kaaga soo qaadno daawadayaasha TV-ga Universal hal mar igu celi walaal su'aashaas waxaan u gudogelaynaa qaybtii telefoonada diyaar ma u tahay bulshada Soomaaliyeed inay su'aalo toos ku weydiiso qurux badan waxaan fanaan u ahay waa ummadayda waxaan wax ku ahay iyaga inaan mar walba su'aalahooda iyo fikradooda ka imanaya iyaga aan ka qaato waa ii sharaf waan soo dhaweynayaa وهاجاك داوديال سلطان سرار ديار بويدين ياهي إذن كنا خذتك تلفونات سو بوح دافسين وحان نكعد سنة إن ميل تي في وكبحية أما سواحن كيري إن انكسو هادلنين سي أنو اسكو مقال نقف كستان أنو أكرامين ما جامع وقتينا نسيسين قاليقا عدكينا أنو قد ديقيسان قفك أوهر رأي ماشاد كسو وعتمي سيد هلو هلو مغلس عبد الحفيد سي وعن بام كو مقلا وكو ننكاسو ودي جي حريد بالي هذا وحان كسو هادليا مقال لي جلاسكو كان سلام ديران وحان لو دريا سلطان كجيسك افريكا سلام الله عليك يا سلطان هذا ولا عليكم السلام ادنا وكو سلاميا هراي غدغل حرير marka laba su'aalood baan rabaa inaan suldaanka weydiiyo su'aasha koowaad waxa weeye social media markuu tuurku sameeyay Sweden iyo Soomaaliya Yurub waxa ku jirtay sheeko ah oo suuq la soo galiyay inuu gudoomiyihii tuurka Khalid Abdi lacag iyo waxba iyo inuu wax iska dimariyo ama wax ka qaatay arinta maxaa ka jiro social media bariya badan isla socotay waa koow midda labaad tuurkiisa dambe ee UK uu soo aadi doono in North America xiliyadu ku aadan yahay oo laga yaabaa inuu ay u soo fuday وهاجاك السلام عليكم عليكم السلام سؤال labaad ee imaanshiisa UK dib baan u dhiganaa qaybta dambe barnaamijka kamid tahay waadna ku mahadsan tahay Sultan arrintaas social media waa noo ognahay oo waxyaalo badan baa la soo geliyaa sawirro la isku dhajiyaa mararka qaarkoodna waxyaalo xaqiiqa la soo geliyaa maxaa kaaga baxay su'aashaas aad kala socotaa baslada su'aashu ma tumaan maqal wuxuu yiri waxa dhacday gudoomiyihii tuurka sameynayay iyo wax isdabamaris baa dhacay marka xoogaa isfaan la'aan baa dhacday buu leeyahay isdabamaris ku salaysan Khalid nin la yiraahdo magaciisa uu sheegay thank you aad baad u mahadsan tahay waa ku salaamaya walaalkay su'aasha qurux badan baad weydiisay wax gudoomiyuhu isdabamariyay ma jirin aniga xaggayga cilad ka timid bay ahayd oo xagga safaaradda ahayd dib dhici aan dib u dhacay waad ogtahay Ethiopia marka la joogo waqtiyo badan baa iska jira waxaan aan u malaynayaa inay tahay meelaha ugu fasaxa badan oo maal waciid baa lagu dhihi maal Canada cas marka maalmahaas ku soo beegantay marka saasay dibiga yar dhacday waraaq yar oo waxa jirtay iyaduna dib lii weydiiyay oo xagga dawladda aan ka soo dhameystay markii dambe saasay ahayd وهاجاك aad baa u mahadsan tahay waxaan u gudbaynaa khadka kale oo ku xiga halo السلام عليكم عليكم السلام magaca walaal xageesi joogtaa faysal balada waxaan joogaa wadanka Canada soo dhawow maxaad jeceshahay Suldaan Seraar inaad weydiisid xabdi suldaanka ba waadi salaam suldaanka muy maqla si waxan baa lagu maqlaa codka kor yar qaado suldaanka waadi salaam labadiina horta marka koobaad laba su'aal suldaanka su'aal yar oo fudud baan inaan weydiiyo rabaa hadduu maqlayo والله مقلا سلطان سيرار haddii aad maqlayso waxaan rabaa su'aal siyaasadda inaan ku weydiiyo marka koobaad horta waxaan kula soconay markii uu madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu joogay dawladda deegaanka Soomaalida saad u qaadi jirtay xisbiga shacabka dimuqraadiga Soomaaliyeed ahaa
waxa heesood xisbigan cusub ee p p ama prosperity party uu madaxweyne mustafa hoggaanka u hayo aada ugu tala gashay miyuu jiraa siyaasadda deegaankase miyaa taageersan tahay su-aashaasaan rabaa inaan ku weydiiyo aad baad umahadsantihiin waa hagaag su-aal wanaagsan wey laakiin waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo suldaanku ma ahan siyaasi ma rabno inay siyaasad baashu nala aado waxay noola socotaa u raran tahay farxad iyo wixii dhacay iyo soo noqodkiisa halkan laakiin su-aashaas ma raba inaanu ku fogaano suldaan madaxweynihii hore ee soomaali galbeed iyo madaxweynaha iminka mustafa ma kuu siman yihiin adiga badan horeyna waan u sheegay anigu fanaan soomaaliyeed baan ahay ummaddaydaan wax ku ahay shacabkayga soomaaliyeed baan waxu ahay inta dowladeed oo soomaaliya jirto dhan baan fanaan u ahay dhan siyaasadeed iyo dhan qabiilba waan ka madax bannaanahay halkaa ku hay maxaa la yidhaahdaa waa kaaga mahad celinaynaa muwaadinkaas inaad u jawaabto waa jeclahay ma doonayno barnaamijkan wax ku saabsan siyaasad haba yaraatee inuu lug ku yeesho maxaa yeelay fanka iyo siyaasadda haddii la kala waardiyeeyo wax badan baa hagaagaya mar kale isku dhex yaaciyana oo isaga kaa dhex yaacaysa waa hagaag layn kaloo ku xiga halo asalaamu calaykum calaykum asalaam khadka dibnaha u dhowee telefonka walaal waan dhowahay horey gudagal cabdilxafiid maxaa raba inaan weydiiyo suldaan seeraar xaflado fiican buu ka sameeyey waddanka sweden iyo yurub ma laga baqaa marka dambe inuu yimaado waddankaan joogno ingiriiska oo uu la sameeyo cabdicasiis scratchy inuu xaflad weyn ka sameeyo ingiriiska waa hagaag magacayga waa cabdirashiid khaliif liverpool baan kasoo hadlaya cabdirashiid khaliif waa mahadsan tahay oo ku mahadcelinaynaa arrinta ku saabsan imaanshaha suldaan seeraar iyo magaalada london ama u k iyo waddamo kale oo badan oo ay ka mid tahay canada iyo australia qaybaha dambe barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan haddii ilaha yidhaahdo waana kuu mahad celinayaa laba qof oo kale aan fursad siiya dabadeedna su-aasha dadka bulshada ay aadkii noo weydiinayeen oo ahayd heesta 275 maxaa loola jeedaa baanu suldaan weydiin doonaa inta ka horeysa dhowr qof aan fursad siiya halow asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah soo dhawo walaal magaca magacii waa jirmaarka jiraabe lidhaha waxaan joogaa gobolka hiiraan buloberde meeshaas xusuus badan bay igu leedahay aad baan u jeclahay oo kusoo dhaweynaya waxaan codsan lahaa suldaanka waxay ii weydiisaa degmada buloberde manoo imaan karaa wixii qaraska anaga hayne hagaag aadaa umahadsan tahay anoo yar baan buloberde soo maray meel aad u qurux badan bay ahayd 80-70 dhammaadkeedii waa mahadsan tahay suldaan goorma ayaad buloberde ka deganaysaa haddii laa yidhaahdo aad baan horta u salaamayaa inankaa su-aashay weydiiyey asaga iyo shacabka reer buloberdeba aad baan u salaamayaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo naftu waa ammaanaya insha allah waan iman doonaa waana idiin iman doonaa insha allah hadduu ilahay raalli ka noqdo waqti qurux badan oo qiimo badan waan wada qaadan doonaa insha allah wuxuu idin leeyahay waa soo socdaa waxna waa sidaa yahay sugi waayenina waa hagaag layn kaloo ku xiga halow halow calaykum salam walaal kor yar hadal adoo mahadsan walaal macaan waa hooyo soomaaliyeed waxaan joogaa ingiriiska london suldaan seeraar waa salaamayaa adigana waa ku salaamayaa cabdixafiid waa kaa qaadnay horey u gudagal marka suldaan seeraar aadaa ugu mahad celinayaa soomaalinimada iyo maaragtay sharafta iyo wanaagga dadka maaragtay wanaagga u hayaan ka mid ahay insha allah marka dambe u yimaado u k-na waa insha allah waa soo dhaweyneynaa insha allah inaan dhexda u xiranaa isku dayeynaa suldaan seeraar su-aalaan weydiinayaa diinta siday isku yihiin iyo salaada iyo adigana waa kaaga mahad celinaynaa heesaha soo daysa inaad ka reebtay muusigii cabdixafi adigu waa nin religion waa kugu ognahay maasha allah marka suldaan seeraar salaada iyo qur-aanka siday isku yihiin maadaama uu cid maaragta culumaad ka soo jeedo aada iyo aad waa kaaga mahad celinaynaa geeridaa been waa kaaga mahad celinaynaa suldaan soo dhoweyn kadib waxaa lagu yidhi sidee ayaad isku tihiin diinta salaada iyo qur-aanka oo ah waxa ugu qiimaha badan ilaahay uu dunida nagu siiyey ee fursadda qaaliga ah waan salaamayaa gabadha walaashiya su-aal aad u qiimo badan bay weydiisay horta waxaa la yidhi
qofka salaada ka taga waa qof aan dhammaystirnayn ama culimada qaar si kale u fasishaa diinta waan isku fiicannahay oo waa diintaan ku dhashay waalidkay igu dhalay aan muslimka ku ahay ilaahay ima baalmariyo salaada waan isku wanaagsannahay alla ka cabsi iyo taqwadna waan leeyahay waa hagaag aad baan kugu mahad celinaynaa su-aashaas aad ugaga jawaabtay waxaan jeclahay markaan inaan laba qof oo keliya siiyo fursad macnaheedu maaha inaan ka dhammaanayna waan kusoo noqonaynaa laakiin waan isdhex gelinayna insha allahu tacaala waan idinkaga mahad celinaa daawashadiina iyo qayb qaadashadiina meel kastoo dunida ka joogtaan intaana taleefonka u gudbin arrintan diinta ku saabsan suldaan berigaad yareydoo qur-aanka baranaysay suuratu mulk ama suuratu tabaarag waxbaa idin kala qabsaday markii waagii qur-aanka waan yarayn qur-aanka waxaa ii dhigi jiray walaalkay oo iga weyn marka annagoo gruuba markiina loo diro ulaha la soo guri jiray dee xilliga qur-aanka ulahan soo gurno annaguba haddana dib nalagu garaaci jiray waayo kubad baan soo ciyaari jirnay ama annagoo kubad meel ku ciyaarina macalinka loo soo sheegi jiray suuraddana suuradda igu adkeyd bay ahayd maxay kugu adkeeyey ma aayadaha isaga kaa dhex khaldami jiray ma kugu dheerayd inkastoo 30 aayadood tahay gebigeedu may waa liigu soo celceliyey qofku markuu dhaafi waayo dib baa loo soo celin jiray koobaad oo kale lagugu soo celin saasay ahayd hagaag khayr allah ku siiyo waxaan jeclahay intaas in ka badanba inaad dusha ka xifdisan tahay ilaahayna aan ugu wada karaameeyo akhrintiisa iyo ku camalfalkiisaba insha allahu tacaala waa hagaag kooxaha kubadda ciyaara yaa taageerta adigu gaar ahaan markaad horyaalka ingiriiska eegtid oo kale kubadda saas kumaana sii fiicnayn laakiin liverpool nin meeshana man city ga hooseeye waxaan kuu sheegayaa dad fara badan oo barnaamijkan daawanaya oo manchester united taageera iyo arsenal inay carar maaragtay ay caraysan yihiin ayna ka xun yihiin fanaankoodii weynaa inuusan kooxdooda taageerin maxaa ka leeda arrintaa wallahi meesheedaan ku adkaysanayaa dadkaana waa dadkaygii waana la soo dhaweynayaa laakiin habeenada ay ciyaarayaan kooxaha waan daawadaa habeenka keliya ma xaadiro habeenka liverpool ma xaadiro hagaag Mow Saalax iyo Suldaan Seraar waa isku tiim baa uu leeyahay waa ku mahad celinaynaa waxaan jeclahay markaan inaan fursad siiyo qof iyo laba hadii la yiraahdo halo abdaafdu waa maxamed weeyaan maxamed soo dhow warka waxaan rabaa su'aasha hadday hor la weydiinaan ka daba tago Khalid Cabdi oo managerka Turkiga Yurub ahaa wax lacag uu ka dhacay ma jirtay oo ma isku khilaafeen arrinta su'aasha taas ay ku saabsaneed Suldaan ma maqashay mise kugu celiyaa wuxuu yiri Khalid Cabdi wuxuu yiri Khalid Cabdi oo arrinta maamulka gacanta kuugu hayay wax dhaqaalaha oo isdoomaraysa inay idin dhex mareen miyaa jirto buu yiri inaad adigu qaadatay yani lacag oo adan xaq u lahayn saasoo kale hadal ku dhigay waa walaalkay wana managerkayga aad baan salaamayaa wax isdaba mara ama wax isdaba maray ma jirin tuurkaayagii team baan ahayn isku xidhan oo anigii walaalkii DJ Subeer aan hagno wax isdaba mara oo teamka aniga ku yimid ama wax si naga noqday ma jiraan hagaag su'aashaas waxaan jecelahay inaan ka gudubno waa ku mahad celinayaa waxaan rabaa inaad marka hore inta aanan u gudbinin khadadka teleefanada iyo adigaba inaanu eegno heestan 275 oo dadku ay isla dhex marayeen waxyaalo fara badan qaar ay leeyihiin 275 waxa laga wada ma garanayno qaar siyaabo kala duwan ay u tafsiireen qaar fikrado kala duwan ay ka bixiyeen bal 275 intaadan adigu noogaga dhicinin meeshay ka timid aadan u wanqalinin si fiican bal 275 iga hooye waa hagaag waa heestii aadna weydiiseen reer Facebook iyo Instagram aad leedihiin Suldaan Seraar ha macneeyo 275 ujeedadeeda iyo waxa ka dambeeya Suldaan soo dhawow mar labaad marka hore xagee lagu duubay muuqaalkan 275 noo macnee
waa mahadsantahay walaalkay muuqaalkan quruxda badan waxaa lagu soo duubay ceergaabo ceergaabo lagu soo duubay weliba gudmo biyo cas meesha ay biyuhu ka dhacayaan yaa lagu soo duubay micnaheeda haddii aan u guda galo 275 dadku waxyaabo badan bay iska weydiiyeen haddaan anagu mar aan fanaaniin nahay waxaan u taagannahay ka turjumista shacabkayaga iyo bulshada aan fanaaniinta u nahay heeskan waa qiso runa hees ku qotoma waxaa sameeyey abwaan aqal yare wuxuuna ka sameeyey qiso markaa taagnayd soomaali haddaan nahay qabiil qabiilka ma dhammaano wiliga gabar muddo wada sheekaysanayey ayaa la isu diiday arrin qabiil darteed weliba dhanka gabadha la yidhi ninkan kuma geeyo oo geeyaanka ma aha labadii famil baa isu diiday gabadhii markii la isu diiday 2 sano la isu diidanaa markii dambe la ogaaday inay wiilkan iyo gabadhan aysan kala maarmin ayaa la isu ogolaaday oo bishii 5aad ahayd aqalgalkoodii habeenkii uu ahaana wuxuu ahaa markay isguursadeen la isu ogolaaday 275 27 bishii 5aad 27 May bay ahayd saasayna ku timid heesku wiilka qisada anigu iga sheekeeyey oo ay hor fadhiistay marka saasaan ku yeelay tirada saasaan ugu darnay waa habeenkii ay farxeen marka qabyaaladiina waa kula dagaalanteen qoyskiina waa ku dhisteen ujeedada ka dambaysa heestuna waa taariikhda iyo sidaa u dhigtay quruxda badan si fiican hagaag daawadayaal waxaan jecelnahay inaanu idinka haqabtirnay ama suldaan idinka haqabtiray sheekada ku saabsan heesta 275 oo uu si fiican u dhigay qoys isjeclaaday wiil iyo gabar isjeclaaday oo wixii qurunka ahaa ee soomaali kala qaybiyey isku diray xaqdarrada ahaa la isugu diiday hagaag waxaan u gudbaynaa khadadka teleefanada haddii ilaahay yidhaahdo halow layn kaloo ku xiga halo ahlan wasahlan halo may maqashaa walaal si wacan walaal noo ku salaamayaa cabdixaafid waa kaa qaadi soo dhowo magaca magacayga waxaa la dhahaa maxamed soo dhowo waan dhowahay maxamed waa dhowahay xaafid maxaa jeceshahay suldaan seeraar weydiisid waxaan jecelahay inaa heesta uu soo qaaday aan ku taageero suldaan seeraar waayo soomaali hadda maanta waxa kala fogeeyey waxaa waa qabiilka iyo waxaas heestaasna saas baan usoo galay inaan isagana ku taageero waa midaas aad buu mahadsan yahay maxamed allah ku karaameeyo nin dhallinyaro ah oo ka dhiidhinaya cadaalad darrada iyo faqooqa iyo maxaa la yidhaahdaa kala qaybinta waa kaaga mahad celina ra'yigaaga iyo fikirkaagaba waa hagaag layn kaloo ku xigaalo laynkaa ima maqlayo suldaan qiimo intee la eg bay leedahay baad is leedahay in dadka bulshada magaca ku leh sidaadoo kale DJ Zubayr oo kale iyo fanaaniin kale oo fara badan in ay qabyaaladda dadka ka wacyigeliyaan iyo cadaalad darrada oo sidaan hadda aad dadka ugu soo bandhigaysaan iyo si qurux badan ba insha allah ugu soo bandhigtaan mustaqbalka waxaan aaminsanahay haddaan fanaaniin nahay anagoo ku hadlaya magaca fanaaniinta inaan mar walba u taagannahay ummaddeena inaan isdilka isdilayso qabiilka tahriibka wax walba aan kala hadalno waana ku taageerayaa in fanaaniintu ay taa ka hadasho iyagoon ka daalaynin mar walba dadkeena waad og tahay cabdixaafidow qabiil iyo qoloqol aad dishay labalaba laysu haystaa qabiilkana qabiilkan ka laandheeraysan baa laleeyahay see adigoo laandheera oo ninkan kula hadlay baa jirta marka inta aan saa nahayna meel lama gaarayno khayrkeen iyo khayr ku-xigeenkeenna waan ka hadhaynaa marka fanaaniinta soomaaliyeed fanaaniinta kaliya maaha abwaaniinta soomaaliyeed iyo dadka magaca leh waxaan ku boorinayaa in arrinkaa laga dhiidhiyo oo nin walba halka uu taagan yahay waxa uu awoodo haddii ay erayo noqoto haddii ay gobay noqoto haddii ay qalin noqoto iyo haddii ay wax kale oo ku saabsanba noqoto in ummadda laga wacyigeliyo oo laga dardaaro oo lagala dagaalamo hagaag aad iyo aad baanu fikirka caafimaadka qaba ee quruxda badan kaaga mahad celinaynaa adiga iyo inta kaala shaqaysa iyo inta u taagan sinaan iyo cadaalad inay hesho bulshada soomaaliyeedna aan la kala soocinin oo qabyaalad iyo qoys aan loo kala qaybinin waa hagaag waxaan jeclahay inaan khadka teleefonka fursad siiyo markaan halo
أهلا وسهلا ولا السلام عليكم. عليكم السلام وأكسو دوينا ولا المجاعة حجيسي جوكتا ولا لا دي السبب عن شوقا وقبر لي رديقة مع السلطان سيرار ما يمقلا يا ولا سوى عن ولا الوحان ربي سلطان سيرار النجا هيست سميرة أيام ربينا وحكا ويدية سميرة دعيسان أنيجا قبر ديدا لي هذا سميرة oo mar dhaweyd aroos ahayd meherkeedii uu ka dhacay hadii sababa arooskii uu noo dhiman yahay walaal heestaas maalintii oo dhan nooga shidnayd arooska meherka marka waxaan rabay arooskii ayaa noo dhiman suldaan goormu hadii sababa imaanaya suldaan ayaan rabnay inaan arooska ku casuuno tan labaad oo aan ka rabay waxay tahay heesta Samiiro Ducaysan iyo u qaaday maxaaskiisa waa heestan aad loo dhacnay waa hagaag سلطان مركا عسوماداس هويدا Soomaalida sharafta ay ku fidinaysaa deeqa la yiraahdo gabadheeda arooskeeda marka hore Ray Universal TV hadanahay gabadha dhalinyarada iyo odaygeeda waxaan u rajeynaa bashbash iyo barwaaqo iyo guri wanaagsan hadii Ilaahay yiraahdo Sultan heestan waxay salka ku haysaa baad leedahay yaadsa u qaaday yaana miraheeda lahaabad leedahay heeska Samiira horta aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay reerkii lagu nasto ee lagu nagaado Allah idinka dhigo barakallahu laka heeska waxaa sameeyay Bangalad Jacayl waa qiso asaga u sameeyay hees uu sameeyay gabadhiisa Samiira hadduu Ilaahay raali ka noqdo aad saban insha Allah waan iman doonaa xagga rab haddii raali ka noqotana waan kala soo qayb gali doonaa insha Allah casuumada quruxda badan yaan leeyahay وهاجاك dadweynuhu waxay ku weydiinayaan heeso badan oo jacayl aad qaada dadku aad bay u jecel yihiin laakiin heesta markaad qaadaysay waa la gartay Suldaan Seraar iyo jacaylku sidee bay isku yihiin ma dhiiga iyo dhuuxu ka galay mise dhuunta ma dhaafsanad isleeda Cabdi Xaafidow horta jacayl laga maarmo waxaan ku noolnahay jacayl baan lagu dhalay jacayl baan ku soo barbaarnay jacaylna waan ku guursanay ciidan ku guursanayna way ku guursan doontaa insha Allah mar walba jacayl baan iskaga dhex jirnaa dhanka jacaylkana waan isku wanaagsanahay waana isku fiicannahay heesahaygana waxaa ugu badan jacayl qaybta daadiska haddii ay noqoto iskuma fiicnin markaan abwaan eriye ka qaadanayo dhanka jacaylka yana baaraa marka jacayl waan ku noolnahay waa gartay abwaanada heesaha ku sameeya sad ku xulataa ma abwaanka shaqsiyan u xulataa mise abwaankii miraho wada socda mise marna abwaanka mirihiisa wanaagsan oo waxa laga yaabaa qof maaragtay miro wanaagsan abuuri kara inuu yahay marna ma dooq baad leedahay oo waad isku barbarigtaa heesaha lagu soo bandhigo su'aal qurux badan horta heesaha waan isbarbar dhigaa abwaaniinta qaar ii soo diray iyo qaar aan kulanana way jiraan sida iminka abwaankayga Aamin Samadoon ila jooga halkan markii ereyada la ii keeno ereyada waan qiimeeyaa waxaan is dhahaa erey maanta la fahmi karo oo dadkeenan Afrika jooga fahmi karaan dadka qurbaha joogana ay fahmi karaan labada generation bay fahmi karaan ina horta aan waxeeyo aan diyaariyo oo abwaanka aan qaabka ugu sheego erey suuqi oo kale qofkan uu durba xafidi karayo ereya la ii keenay way jiraan oo aan dib u celiyay oo aan ereyadan ma qaadi karayo way qofka in runta wax ka wanaagsan ma jiro haddii erey intii lagu keeno aad tiraahdo waan qaadaya oo qaadi weydo oo ku cajibinin dib bay leedahay marka intaad qofka moraalkiisa ilaalin lahayd runta uu sheegaa ka qurux badan taasaan aqaanaa heesahaas aad diiday maxaad ku diido oo ku dhibsatay Suldaan heesaha kuwa waxaa jiray ereyadoodu aysan qancinin ama saan anigu jeclaystayn u qornayn laga yaabaa in isaga la qurux badnayd laakiin anigu ilama qurux badnaa ani fikirkan aaminsanahay wuxuu yahay waxa markuu aniga i qanciyo inuu bulshada qancin karo anigu markaan ku qanco inaan bulshadaydana aan ku qanacsiin karayo taasaan aaminsanahay kuwa aan ku qancin bayna ahayn heesahaas وحقاق هذه أدبا ما سنتهي وحن جعلها يوكلا إن وحكا ويديو أن أرمهان كسابسن إمان شاهق دالك إنجليز كندا أستراليا بلسا خدك تلافن كأن قفي الله بفرصة سي هلو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. واندو هي ولال
magaca seeraar baan walaal wax leeyahay caasha hay caasho soo dhawo suldaan waxaan leeyahay fanaaniinta Soomaaliyeed oo ninka ugu qiimaha iyo qaayaha badan ayuu ku jiraa fanaaniinta inta ugu qiimaha badan heesta uu lamaanaha u qaadayna waan ku hambalyeeynayaa Soomaali Maxamedna waxaan leeyahay aynu iska dayno cunsurinimada dadkeena walaalaheena aynu la cunsuradaynayo dadkeena aanaynu waxba dheeray Soomaalida kalaana waxba dheeray hagaag Caaisha waa mahadsantahay oo kaaga mahad celinaa fikirkaaga suuban Soomaalinimada ku salaysan guuleyso oo ku mahad celinayna Suldaan waxaan war ku hayaa dhawaan inaad ku soo socotay inkastoo uu baaqday cudurkan dunida waalay awgeed aad u baaqatay inaad imaanaysid safarkaaga kugu horeeya haddii alla yiraahdo boqortooyada Ingiriiska oo aan kala hadlayo ee London ugu weyn tahay dalka Canada iyo waliba Australia coronavirus baa jira dunida way yara kala xiran tahay maxaad qorshayseen oo isleedahay corona marka laga baxo sameey waad mahadsantahay walaalkay way qorshaysnayd inaan imaado oo diyaar bay ahayd anigoo visa Europe kordhisan karayaan ka doorbiday inaan Addis Ababa imaado oo visa ka qaato oo aan UK tago laakiin waqtigan qorin waxa xag rabbi ka qornaa buu ahaa meen dhicin inaan markaaba noqday ahayd laakiin meen dhicin insha Allah hadii la raali ka noqdo karoolahan yaa baajiyay insha Allah markuu uu dhamaado karoolahana hadii uu raali ka noqdo waan iman doonaa insha Allah hadii la raali ka noqdo waxay iga go'an meel walba ay Soomaali joogto inaan insha Allah aan tago aniga keligay ma aha aniga teamkayga walaalkay DJ Subeer iyo managerkayga Khalid Abdi iyaga oo isku duubanahay inaan meel walba wada marno hadii la raali ka noqdana waan soo gaari doonaa ummadayda Soomaaliyeedna waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu cuduradan uu baalmariyo dhaqsana uu nooga dhameeyo insha Allah وحقاق وقرتي waxaan jecelahay insha Allah taala ilaa inuu halkaan nabad kugu keeno dadku markay qof fiiso u dalbayaan oo barnaamijkaas si fiican wax uga ogahay walwal badan oo waxaa jira dadku markaas qofka la keenayo fiisaha loo soo xareynayo inuu noqon kari waayo oo xoogaa qofka walwal gelisa fiisaha xareynaya adigu 2 maalmood ka hor xilligaagii fiisahaagii ayaad baxday maxaad isleedahay way kugu kaliftay inaad xilli hore baxdid oo dadkii ku keenay oo fiisaha kuu xareeyey ku sharafay inaad sharaftid waxaa jirta in saad u sheegtayba dadku badanaa aysan soo noqonin laakiin marka anigu qiimeeyey laga yaabaa fikirro iga duwan inay jiraan dee meel aan iminka ku cusbahay oo nolosha koogo kasoo bilaabi karayo inaan iska dhiibo wayla falxumaatay niyaddeydana markii horeba kuma sin jirin dadna way sharfeen oo way maamuuseen oo wakiil bay iga noqdeen marka dadkaana inaan sumcaddooda iyo magacooda aan dilo waan diidayey inaan viisaha 2 cisho iyadoo ii dhiman tahayna aan baxana waxay ahayd marka hadhow viisa kale aad dalbanayso ninkan waxaa la leeyahay isagoo waqtigiisa aan dhamaysanin buuba soo noqday marka waa lagu siinayaa marka taasay ahayd kugu siin doonaan haddii ilaahay yiraahdo maadaama rekoorkaas quruxda badan aad dhigtay dadkii ku karaameeyeen aad si wacan u karaamaysay rag qowl baa xiraa la yiri waanu kaaga mahad celinaynaa waxaa stuudiyaha magaalada Hargeysa iminka ku sugan groupka dhalinyarada oo abwaan Samadoon uu hogaaminayo Samiro TV-ga Universal ka tirsan daba casar looma kala harinin waa idin salaamayna kulligiin Allah idin karaameeyo live ayay wax u joogaan stuudiyaheena TV-ga Universal wayna ku mahadsan yihiin waqtigooda qiimaha badan ay noo soo bixiyeen Allah karaameeyo وهجاك خدك تلفون كذا ندي بيقولوا قلنا هلاو 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 السلام عليكم عليكم السلام وعليكم السلام ولا السؤال مقعة ولا المقعة أحمد سليمان عرب وإحنا كسر اللي برعو يونيفرسال تي في يو وضع أحمد وضع يونيفرسال تي في يو عبد الحافظ بوان سلامية
inta ay in lamidaan hawada kuu soo marinaynaa axmed soo dhawow burcad joogtaa gobolka togdheer waa ku soo dhaweynaynaa axmed waxaan doonayaa suldaan seeraar inaan weydiiyo su-aal ah axmedow aan israacso taleefonkaygala soco waxagaag axmed nagu soo celi halo asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal soo dhawow magaca ikraam baa la dhahaa walaal suldaan seraarna aad baan u salaamaya adigana waa ku salaamay cabdixaafid waxaan weydiinayaa walaalkay suldaan seraar goormaad insha allah noogu imi doontaa jabuuti oo noogu dhigi doontaa show walaalaha dadka reer jabuuti aad bay ku taageeraan shacab badan oo taageero badan baad ku haysataa hagaag su-aal wanaagsan weeyaan suldaan seraar goorma ayaad jamhuuriyadda jabuuti ka deganaysaa haddii ilaahay yidhaahdo oo reer jabuuti aad u tegeysaa iyo dowladda uu hogaamiyo madaxweyne ismaaciil cumar geelle iyo shacabka soomaaliyeed ee sharfan ee halkaa ku nool aad baan u salaamayaa shacabweynaha reer jabuuti iyo madaxdooda ugu horreeya madaxweynuhu insha allah hadduu ilahay raalli ka noqdo waan jeclahay waa dalkaygii hadduu ilahay raalli ka noqdo waan iman doonaa barnaamijyo qurux badanna waan ku qaban doonaa wakti badan oo qiimo badanna waan wada qaadan doonaa hadduu allah wadula raalli ka noqdo jabuuti waa ii dhiman tahay weli maan tegin laakiin insha allah waan iman doonaa haddii alla yidhaahdo waa hagaag layn kaloo ku xiga halow halow halo asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal soo dhawow walaa waan dhowahay waxaan ka soo hadlayaa waddanka dheermaarig waa ku soo dhaweynaa walaal magacaygu waa aamine axmed yuusuf walaal soo dhow walaal waxaan rabay inaan fanaanka weyne soomaaliyeed horta salaamo aad ba salaam wala may maqlaysaa si wacan baan kuu maqlaa inaan kaa dhex gala dooni maayo horey guda gal walaal wala waan ku jiraa insha allah waan idin salaamaya adiyo fanaanka soo dhawow walaal horey u guda gal fadlan wado waa ku maqalnaa laynkaas waanu ka gudbaynaa waa mahadsan tahay fadlan nagu soo celi haddii ay fursad aad heshid halow layn kaloo ku xiga waa ku soo dhaweynaa libax soo dhawow halow asalaamu calaykum magacaygu waa axmed kaafi way ogahay mar dhawaado dib baan ugu soo celiyey markaa universal t v iyo suldaan seraar baan salaamaya axmed waa ku faraxsanaa inaad nagu soo celisay hore u guda galnaa kaa gooyi dooni maaye labada su-aalood aan weydiinayaa waxa weeyaan suldaan seraar waxaan weydiinayaa inuu bal noo fasiro qisada ka dambeysay heestii mataantii jacaylka mataantii jacaylka waa gartay talabaadna waxa weeyaan maadaamaanu reer burca nahay suldaan seraar qorshaha ma ugu jirtaa inuu gobolka togdheer oo gobolkii ragga ah uu hees usoo qaado aad iyo aad baa umahadsan tahay axmed suldaan waa maqlaysaa reer togdheer gaar ahaan magaalada burco waa garnaqsadeen maxaa ka leedahay waan salaamayaa dhammaan shacabka reer burco aad baan u salaamayaa asigii asxaabtiisaba walaalkay insha allah hadduu ilahay raalli ka noqdo hees aada u qiimo badan waa soo wadaa oo xaggiina ah naftii gaadha insha allah heeska qisada ah waxaan u malayn inay ahayd tii hore ee fasilay 275 mataantii jacaylka mataantii jacaylka okay mataantii jacaylka waxay ahayd qisaruna abwaan baa sameeyey faysal la yidhaahdo xilligii dadkeenu aadka tahriibka ugu daadsanaa bay ahayd gabar buu ka sameeyey oo asaga wada sheekaysanayeen oo tahriibtay marka muddo 3 bilooda gabadhii nolol iyo dhimasho midna waa la waayey cid ka soo warbixisana waa la waayey marka halka heeskaasuu sameeyey anigu ii keenay aniguna sidii baan ku qaaday waa tanay hees ku leedahay mataantii jacaylkay maxaad mudatay daawaday ma nooshahay ma dhimashaa xaggeeda maanta joogtaa marka gabadhii nolol iyo geeri midna kumuun haynin marka saasuu heeska uga dhigay horiska ma nooshahay ma dhimashaa
waa gartay waxaan jeclaa inaan kaloo ku weydiiyo hadda caawa dad badan baa ku daawanaya facebook haddii ahaan lahayd iyo tv-ga universal dhalinyaro fara badan oo rag u badan iyo dumarba oo baadigoob ugu jira qofkay nolosha la qaybsan lahaayeen marka adi laftigaagu hees waxaad qaado la yidhaahdo yarta raadiya marka yartaa ragga oo dhan u wada raadinaya ma noo tilmaami kartaa gaar ahaan kuwa singalka waa mahadsantahay walaalkay heeska yarta raadiya waxaa sameeyey abwan cabdiraxmaan fiili oo iminka muqdisho jooga qisadu isagay gaar u tahay laakiin nin walba dhanku doono wuu ridi karayaa waa gabadh la raadinayo maankay ruuxdaa u ruuxlaynayo waan raagsaday ii raadiya saasay ahayd laxanka barbar baa sameeyey muusiga quruxda badan ee daryaanka leh macalinka weyne heenoo kadlabaajo baa saaray marka jawaabo laga bixiyena way jiraan heeskaas waa gartay maxaa ka mid ah jawaabihii laga bixiyey yarka raadiya bay ahayd anigu yarta raadiya baan ahaa laakiin yarka raadiya bay ahayd marka hees barbar taallo oo sidii oo kale ah laakiin markaan lagu raadinayo inan ha allah u sahlo qolyahaas baadigoobka jacaylka ku jira oo dhan meel kastoo ay joogaan khadadka telefoonaan dib ugu noqonaynaa waxaanu ku sii soconnaa gabagabadii barnaamijka balse aan 2 o 3 baan fursad siiya haddii aan la yidhahdo halo 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 asalaamu calaykum halo magacayga وعليكم السلام magaca walaal وحمزة oo joogo South Sudan حمزة walaal waxaan salaamayaa Sultan Seyraar si wacan Sultan ka codsanayna intaan ku cazubno South Sudan Juba aduu insha Allah uu dhamaado coronahan waxaan ka rajaynayaa intaan kusoo dhaweynaa South Sudan uu yimaado aad baan u jecelnahay fanaanka waa gartay waa uu ku maqlayaa kolley inuu South Sudan Juba yimaado shacabka Soomaaliya halka ay joogtaan oo la kulmo asagaa nooga jawaabi doona waa mahadsantahay qof kale oo ku xiga aan fursad siiyo halo halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah soo dhowow maxaad jeceshahay Sultan Seyraar inaad weydiisid oo iminka ku sugan stuudiyana magaalada Hargeysa suldaanka iyo TV-ga Universal TV labadaba waan salaamahayaa suldaanka waxaan rabay in aan weydiiyo may maqashaa cabdixafid si wacan si wacan suldaanka waxaan rabaa in aan weydiiyo maadaama wiil Soomaaliyeed oo iga horreeyay uu codsi u soo dirsaday oo ka soo hadlay magaalada Bulaberde ee gobolka Hiiraan oo uu ku casuumay oo uu yiri goorma noogu imanaysaa aniguna sidoo kale suldaanka waxaan ka codsanayaa anigoo hadda ku sugan magaalada Dhanaan ee gobolka Shabeelle goorta suldaanku noo iman hayo ee nagu soo booqan hayo halka si aan anaguna xafladihiisa uga qayb qaadanay hesiisa macaan ugu raaxaysano waan weydiin lahaa goorta nagu soo booqanay halka ama barnaamijka ugu qabanayo aad baa u mahadsantihiin labadiinuba waa mahadsantihiin khayr allah idin siiyo waxaan u gudbaynaa Sultan Seyraar goormaad tegeysaa meeshaad ku casuuman tahay Juba la yiraahdo South Sudan goormaad tegeysaa magaalada madaxeeda Juba goorma ayaa tegeysaa goobtaad ku dhalatay oo lagaaga yeerayo waa mahadsantahay waan salaamayaa inankii su-aashiisii koobaad insha allah hadduu ilaah raalli ka noqdo dhammaantiin waadin salaamayaa haddaad jaaliyadtihiin iyo haddaad arday tihiinba hadduu ilaah raalli ka noqdo waa idinka qaabilay waana idin iman doonaa insha allah hadduu ilaah raalli ka noqdo markay naga baxaan cudurradan insha allah waan idin iman doonaa su-aashii hal mar igu celi hal mar su-aasha kale waxay ahayd goobtaad ku dhalatay goormaad imaanaysaa haddii ilaah yidhaahdo shabeellada dhexe insha allah hadduu ilaah raalli ka noqdo mar dhow baan iman doonaa naftii gaadha waan soo socdaa waa sidaa waa hadalkaagiiye aad iyo aad maasha allah waxaan ku sii joognaa gabagabadii waxaan jeclahay insha allahu tacala aan barnaamijka soo gabagabayno dad fara badan baad jeceshahay inaad u mahad celisid Sultan adiga aan fursad ku siiyo khadadka telefoonada waa buuxaan facebooka dad badan baa kaala socda ku daawanaya dunidu barnaamijkan ay daawanaysaa caawintaan jecelnahay haddii ilaah yidhaahdo dad badanna wuu gaari doonaa saacadaha iyo maalmaha soo socda
maxaad jeclaan lahayd inaad tiraahdid oo aad kusoo gabagabaynaysaa ama u mahadcelinaysa yaad u mahadcelinaysaa intaa walaalkay haddaan idhaahdo dad baan u mahadcelin horta ma soo koobi karayo marka koobaad waxaan rabaa inaan ummadayda Soomaaliyeed waliba dhalinyarta Soomaaliyeed aan fariin qiimo badan halkan ugu diro waxaan nahay haddaan dhalinyar nahay nafdhabarta bulshada waxaan nahay dadkii bedeli lahaa ama aad tihiin madaxda maanta jirta in la isku duubnaado oo magaca Soomaalinimo lagu dhinto aan mid ahaano wadajirka wax lagu wada yahay inaan qabiil iska ilaalino inaan eexsiga iska ilaalino inaan mid ahaano isku duubnaano magaca Soomaalinimo aan ku dhimano waayo haddii aan qabiil ka sheekayno oon dhahno hebel waa ree hebel qayrkeen iyo qayr ku-xigeenkeenba waan ka hadhaynaa taa haddaan intaa kaga imaado ummadayda Soomaaliyeed oo dhan waan wada salaamayaa meel walbay daafaha caalamka joogaan oo adiga aad ugu horeyso walaalkay cabdixaafid adigii familkaaga badbaadin salaamayaa dhammaan shaqaalaha TV-ga Universal TV aad baan wada salaamayaa walaalkay saaxiibkay my legend DJ Subeer aad baan u salaamayaa isaguna oo ah qof qalbiga ka wanaagsan laga yaabaa in la yiraahdo Subeer iyo Suldaan waa saaxiibo isu dhow Subeer waxaan aaminsanahay inuu yahay walaalkay inuu yahay qof dadnimo leh inuu yahay qof qalbiga nadiifka ah shaqooyin badan wayna soo wada dhaxmareen wadamo badan waan isla soo marnay insha Allah waan wada qaban doonaa waxaan kaloon aad uga salaamayaa Alfa Trusty gaar ahaan Daahir Cali Kulmiye managerkayga Khalid Cabdi Xasan aad baan u salaamayaa dhammaan teamkayga oo isku duuban Shiri Caamir waan wada salaamayaa waxaan kaloon salaamayaa Idris Cabdullaahi Dabcasar Amin Loof Amin Samadoon Abwaanka Maxamed Dheeg walaashay Hani Cali oo ila joogta walaalkay CK iyo walaashay Samiira aad baan u wada salaamayaa familkaygaan salaamayaa hooyada iyo aabahay ugu horeeyaan xaaskaygaan salaamayaa iyo wiilkayga Seraar Yare maasha Allah karaameeyo dadka kula joogo walaalaha khiyaarta stuudiyaha jooga aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ninka la yiraahdo DJ Zubayr si fiican baad uga hadashay mararka qaarkood waxaa aragtaa waxyaalo aan qurux badnayn oo social media dadka ay la cararayaan oo la dhexyaacayaan qofka markaad wax la cuntid ama jid la martid baad garan kartaa qofka uu yahay waxaanu ku faraxsanaynaa safaro badan la gashay aadna ogtahay qofka uu yahay intaanu ku ognahay DJ Zubayr nin qalbi xaaran oo ummadda Soomaaliyeed u siman tahay oo horumarkooda jecel inuu yahay ayaan ogahay maraanu London ku kulanay wuxuu igu yiri haddaan qofka Soomaaliga waxba aana ku tari karinin dhibaatadeeda inaan kala taga ayaan doonaya hadalkaas hadal qiimo la weeye DJ Zubayr waa ku salaanay waana ku mahadcelinaynaa dadaalka iyo wanaagga aad u haysid daayirta Soomaaliyeed iyo dadka waaweynba khayr Allah ku siiyo haddaan kula kaftamo ciyaartooyda waa la kala iibsadaa Sweden waa meel yara ringa bay kuma la eka way yar tahay boqortooyada Ingiriiska ku soo gadanaysa iyo Manchester United u diyaar garow Suldaan waa ku mahadcelinaya adiga waxaan jecelahay kale inaan mahadceliyo maax oo ah farsamayaqaankeena TV-ga Universal jooga iminka magaalada Hargeysa aad baan ugu mahadcelinayaa agaasimaha TV-ga Universal Maxamed Caabi waa u mahadcelinaynaa Badrina aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa iyo waliba Cabdirashiid Cabdiwahaab iyo teamka Universal oo dhan oo Samiira ay kamid tahay oo stuudiyaha nala joogta aad baan idinku mahadcelinaynaa kulligiin la'aantiin barnaamijkaana ma bixi lahayn halkan stuudiyaha waxaa ila jooga Cabdixakiin Faqi oo asagu farsamayaqaanka ah barnaamijka waxaa idin soo saaray Cabdalla Mudhir oo stuudiyaha ila jooga anigoo Cabdixafiid Maxamuud Jaamac ayaa idinla socodsiinayay intiinina daawanaysay intiina la soo xiriirtay iyo inta ka qayb qaadan doonto mustaqbalkaba waanu idin mahadcelinayay intaan ka qayb qaadaninba intaanu kanoo kale dib ugu kulmi doono guul iyo gobonnimo waa mahadsantiin